ninka si kama ah ayuu ku ogaaday in waalidiintiisu yihiin martida VIP ee maamuluhu doonayo inuu soo dhoweeyo. Isla markiiba maamuluhu wuxuu ninka u dhigay cashar adag sababta oo ah dhaqankiisa xun. Markuu arkay waalidkiis iyo walaalkiis yar hortiisa taagan, ninku wuu argagaxay maadaama uu cunayay cuntada haray ee aabihii keeni jiray iyo dharka ay hooyadii ka soo qaaday qashinka. Markuu arkay waalidkiis oo xirxiran dhar raaxo leh, ninku wuu yaabay. Laakiin maamuluhu wuxuu ku amray inuu jilbo dhigo oo raali geliyo ninka taajirka ah. Maadaama ninku xirnaa maaskaro, waalidkii ma aqoonsan wiilkooda. Markaas maamuluhu si degdeg ah ayuu u jiiday ninka sababta oo ah ninka taajirka ah wuxuu qabanayaa xaflad qalinjabineed oo uu samaynayo wiilkiisa korsan. Hooyadu waxay soo jeedisay in runta loo sheego ninka, laakiin aabuhu uu diiday wuxuuna sheegay inuu si lama filaan ah ugu sheegi doono marka iskuulku bilaabmo. Si kastaba, ninku markuu maqlaayay hadalka waalidkii, ilmo ayaa ka qubatay sababtu waxay ahayd nololihiisu wuxuu galay tirinta dambe. Waxa dhacay, ninku wuxuu rabay inuu qoyskiisa ka saaro dhibaatooyinka, wuxuuna shaqooyin goos ah qaban jiray maalin kasta. Ugu dambayna wuxuu noqday kaalinta koowaad ee imtixaanka heer gobol. Laakiin nolol aan joogto lahayn darteed, wuxuu ku dhacay kansarka caloosha ee heerka ugu dambeeya. Dhakhtarku wuxuu sheegay inuu leeyahay hal bil oo keliya oo uu noolaanayo. Ninku markii hore wuxuu rabay inuu isticmaalo bishaas si uu u caawiyo waalidkii, laakiin maanta ayuu runta ogaaday. Markuu fiidkii guriga ku noqday, ninku wuu fakaray. Si lama filaan ah, aabihii oo xiran dharka shaqaalaha nadaafadda ayaa yimid isagoo wata sanduuq digaag ah. Hooyadii iyaduna waxay soo bixisay kabo oo ay sheegtay inay abaalmarin u yihiin kaalinta uu ka galay imtixaanka qaranka. Ninku wuu iska yeelay inuu kabo qaato, markaas ayuu u sheegay waalidkii inuu xanuunsan yahay oo uu u baahan yahay lacag daawo. Walaalkiis yar ayaa markaas yidhi inuu arkay